halkani waa sabada ceelka ceel shilaabo oo kamid ah ceelasha sida caanka looga yaqaan gobolkan Qoraxay ama guud ahaan geeyiga Soomaalida waana ceel taariikh dheer ku leh degmadan Shilaabo waana ceelkii loogu magac daray markii la aasaasay degmada Shilaabo hadaba intii aan safarka socdaalka aan ku maraynay degmooyinka gobolkan Qoraxay aan ku jirnay ayaa waxaan soo gaarnay degmada Shilaabo ee gobolka Qoraxay oo kamid ah degmooyinkii ugu horeeyay gobolkan Qoraxay waxaan saaka soo gaarnay subaxnimadii samada ceelka geela ee Shilaabo waxaan halkaas waraysiyo kala gedisan kula yeelanay isla markaasina nooga warbixiyay taariikhda ceel Shilaabo dadkii halkaas ku sugnaa isla markaasina u soo aruuriyay geela ama si fiican u yaqaanay taariikhda ceel Shilaabo magacayga waxa la jaamac Ali Baalaha Maxamed ceelkan marka doonaysan warbixintiis ceelkan muddo badan buu dhisay Talyaaniga baa dhisay ceelka Talyaaniga taariikh inta laga joogo Talyaaniga maalku Ingiriisku ka caydinayo wadanka ya ceelkan anoo aan degni waa deganeen markaa yaa jirtay Talyaaniga bariga soo qoday marka maadaama uu bariga qoday intii ka dambeysay ceelka waa la abaysan baa loo abayoon ma dumin waxna kuma dhicin ma halaabin xoolaha uma saa uga abayay dadku si fiican baa loogu soo bixiyay mar wuu go'naa oo marba uu ahaa biyo gelin oo everska ah oo shilaal xum ku dhacay marna barwaaqo ahay oo laga cabi jiray hadda waa kan Ilaahay waa noo nimceeyay saasaan uga cabnaa xoolahaas ariga geela dadka intuba way ka cabaan Ilaahay waa nagu nimceeyay motor baa naloo taagay bari halkaas motorkiina markiiba waa naga jabay motorra meelaha magaalada koonahooda iyo meelaha laga wado dad waan gareyn baa uu ka cabaa laakiin ceelkan ceel taariikhdiisu inta dhintaay oo Talyaanigii ah oo ilaa ay maanta la joogo aan ku noolay oo ku biyo cabnay oo ku dadalay oo ku dunya dhaqanay weeyaan waa Shilaabo waa shan xariir loo waa nin walba Shilaabo baa afkiisa ugu badiyay nin walba la yimaadana looma diido waa ruuxa waa fadiila weeyaan qabiil iyo heer malaha ninkii doonay oo mali waa ka cabaa hawiye haday noqoto marxaan haday noqoto ogaadeen haday noqoto nooc kastaba wax laga leeyahay ma jiro waka madaxayga saddexan waxa weeye Maxamed Xiire Cabdullaahi Cabdi erka taariikhdiisa hadaan kaaga sheekeeyo Shilaabo la dhahaa waa taariikhda la yiri Shilaabo nu wada shubo taariikhdiisa halkaas taaganta ilaa waxay taariikhdiisu ku siman tahay ilaa Talyaani waan maqlay waxa weeye nabadgelyo weeye waasaca buu leeyahay wadankiisa iyo dalkiisa nabadgelyo looga joogaa waa Shilaabo taariikhdiisuna waa Shilaabo nu wada shubo weeyaan waa shan xariir la ceelka la baxay weeye soo ma garanaysid waxa lagu ridaa konton xariir markuu u liito dunyada ka cabtana Ilaahay bay u xisaaban tahay geel bayna u xoog roontaa nabadgelyo ku wada joogan nabadgelyo ku wada dhaqan yihiin cadow badanna uu dhowranayaa geesu kaga heeraaran yahay wararka nabad TV samada ceelka Shilaabo ee gobolkan Qoraxay Rooda Cabdullaahi Maxamed Rooda Rays